Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ilaa iyo 4 diyaaradood ka dejisay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose, xiisad halkaasi ka taagan iyo sidoo kaleeto waxaan idiin soo gudbin doonaa ciidamo kale oo goordhow laga daabulayo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Laakiin intaan u guda galin, daawadayaal muuqaalka like saara, sii share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin, bogaadna follow soo dhaha si aad kaga mid noqotaan saaxiibada ku xiran. Mahadsanidin. Aynu ku bilownay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay ka dejisay ilaa iyo 4 diyaaradood, kuwaasi oo siday ciidamo kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamadani oo ilaa iyo 2,000 oo askari ku dhow ayaa waxa ay isugu jireen ciidamada Gorgor, Haram Cad, Ilaalo Qaran iyo sidoo kaleeto ciidanka militariga Soomaaliya, waxaana halkaasi ka dejiyay ilaa iyo 4 diyaaradood oo siday ciidamadani. Mas'uuliyiin ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose ayaana soo dhaweeyay ciidamadani ka degay deegaankaasi ee dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta ay diyaarado kaga daabushay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ciidamadani ayaana qayb waxa ay ka noqonayaan ciidamada dowladda ay deegaankaasi u geysay in ay sugaan amniga deegaankaasi iyo deegaanada hoostago, isla markaana ay kala wareegaan sugitaanka amniga ciidamada howl ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS. Dhanka kaleeto, Jubbaland ayaa waxa ay aaminsan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada halkaasi ay ku daadgureynayso ay ugu talagashay in Jubbaland maamulkeeda ay ku kala dirto. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana waxa uu wadaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo laga dareemayo magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland dhaqdhaqaaqyadii ugu badnaa, waxaana heegan la geliyay ciidamadii ugu badnaa ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoo dhanka iyo xeebaha maanta Jubbaland ay ka sameynayso difaacyo kala duwan. Waxaana wararku ay sheegayaan in maamul goboleedka Jubbaland uu ka cabsi qabo in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabulayso deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose ay halkaasi ay ku gaaraan magaalada Kismaayo doonyo kala duwan oo ciidamadu ay wataan, kuwaasi oo ah nooca doomanka dheereeya ee loogu talagalay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaana shalay ilaa iyo maanta dowladda federaalka Soomaaliya ay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose ay ka dejisay diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto diyaaradaha dagaalka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu ka cabsi qabaa in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay kala wareegaan amniga magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Daawadayaal, ugu dambeyntiina haddii aynu eegno warar hoose oo aynu ka heleyno garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ayaa waxa ay sheegayaan in haatan la diyaarinayo ilaa iyo 4 diyaaradood, kuwaasi oo gaaraya magaalada Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. 4 diyaaradood 2 ka mid ah ayaa waxa ay yihiin nooca diyaaradaha la yiraahdo Cargo Airline, kuwaasi oo qaada xamuulka, waxaana ay qaadayaan saanad ciidan iyo sidoo kaleeto gaadiidka dagaalka oo ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaanka Ras Kamboni ku sugan isku qalabeyn doonaan. Waxaana dowladda dhexe ee Soomaaliya ka go'an in maamulka Jubbaland ay kala dirto. Sidoo kaleeto, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shalay waxa uu sheegay in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu taleefanada ka qaban waayay isaga iyo sidoo kaleeto ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda ka qaybta ahayd shirka golaha wadatashiga qaran, taa oo keentay in dowladda ciidamo fara badan ay ku daabusho deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose si ay uga hortagto damaca Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Daawade, haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka, like saara, sii share gareey oo la wadaag saaxiibada, bogaadna follow soo dheh. Mahadsanid.